السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا مول بجوكتين ويس الدقبلوها. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم رمضان كريم. رمضان كريم مول بجوكتين سودو هذا ما أنتوا وحان روانا كارلو فيديو دوانك قالوا وهو جمال علي جمال سودو سحبك سلام يا سواح وناكسن ما شاء الله عوان وحسوقري مانتا مدحوينها دلك عليكم السلام أحمد نور وقا سودو هذا سيشير قرايا رمضان كريم رمضان كريم رمضان مبارك ميلو بجوكتي سودو هذا ما تو حكى الرباع أخين حساسية إن كستوي رمضان ويتهاي بشي بركاستيد لو جرو لكن سياسة وكشة كرنا أذيقة أو هذا الدم بيجرين قفنا هذا عينين ما توحرنا كذا لنا ودك جيبوتي درس كان ناي شنت سوماليا كم الهانجري دولة سوماليا محمد سياد برة الله يرحمه وهو قام يجري نقالها يقرش كوب حسي حريته الليل مقرر يسامر كتبنا تري شن سوماليا واحد لهم متجرو وسوماليدو وحويان وكونفورت كليه كوسو كوبي oo yiri Soomaaliya shanta waxa la yiraahdo Talyaani baa sameeyay wax shan Soomaaliyeed la yiraahdo ma jiraano Soomaalidu waa qoomiyada yiraahdeen waa sida Afrikaanka bariga bartamaha Afrika kale qoomiyadaha degan ee Kiswahiliga ku hadla luqadda Kiswahiliga ku hadla amal yeelimid yihiin beenaan waa ka duwanaa qoomiyadaha Kiswahiliga ku hadla ee bariga bartamaha Afrika degan Kiswahiligooda waxa weeyaan waa Uganda Tanzania Kenya iyo Zaire wadanka daan Congo hadda la baxay afarta wadanka Kiswahili ku hadlaan laakiin dadku waa dad kala duwan weeyaan Kiswahiliga sababta loogu hadlana waxa weeyaan inta waxa la rabay Swahili baa la international in laga dhigaa la rabay luqad weeyaan dad ma aha waxa la rabay in macnaha wadamadaasi in la isku afgarto luqadda Kiswahiliga okay luqadda Soomaaligu luqadda annaga waan leenahay Soomaaligu iyo dadka Soomaaliga waa different weeyaan dadka Soomaalida Soomaali waxa la yiraahdo waa dad weeyaan luqadna maaha dhulna maaha dadka Soomaalida la yiraahdo waxay ku nool yihiin oo ay degan yihiin oo meel walba lagu aqoonsadaa oo la garanaya Ethiopia kililka shanaad federaalka Ethiopia marka uu u qoondeynayo wuxuu yiraahdaa kil amist oo Somali region ayuu dhaca marka Kenya ay u qoondeynayso miisaaniyadeedii dhaqaalaheeda NFD Kenya waxay tiraahdaa Somali region bay tiraahdaa that means the people oo Soomaalida ay degan NFD ay degan kilka shanaad waxa weeyaan inay Soomaaliyiin boogiyo waagi gumeysiga uu jiray ee gumeysiga inuu gumeysanayay ee adoonta aan ahayn ee magaraysa anshuurta dhulka naga noo laga qaadayay ee magaraysa annaguna la gumeysanayay ee markaas wiil cadaan Yurub ka yimid intuu noo yimid dhulkii Soomaaliyeed annaga lahayn nagu canaadi jiray ee magaraysa nagu adoonsan jiray at the same time markii uun calaykum salaam waraxmatullaahi wa barakaat soo dhawaada si share gareey fadlan si gudbiyo wuxuu nabi jiray Somali British iyo Somali Italian والله هذا Somaliland iyo Soomaalida koonfur oo naqaano weeyaan British Somaliland Soomaali weeyaan ma dhihi karaan maanta Soomaali maneen sababtoo ah magaalada Hargeysa iyo magaalada Burco iyo magaalada Berbera iyo magaalada magaraysa ee Buuhoodle iyo Laascaanood iyo Ceergaawo dadka dago waa dad Soomaali macnaha sida koonfurta annagu Kismaayo Garowe Baladweyn Baydhabo Jowhar u kala degnaan isu naqaano oo Soomaalina nahay oo reeraan nahay u garnayno ya ayaguna sidaas oo kale Djibouti French Somalian balli jiray territory-ga Francisco uu haystay uu gumeysanayay weeyaan Soomaali weeyaan Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti waraysi laga qaaday
oo diiwaanka galay oo markaa asaga markuu warbixinta bixinayay uu u malaynayay kaliya in macnaha markaa ayada TV-ga laga sii deynayo oo TV-ga laga daawado TV-ga markii laga daawado in macnaha markaa ayada aanan taariikhda geli doonin ogow video walba oo qof Soomaali ah oo hadli yaqaano oo siyaasadda rajo kale oo rabo inuu dad maamulo waxa laala waxa aad tiraahdid diiwaanka ayay galayaan waa la qorayaa wax qoran oo meel yaalo weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti hadda ee rejiimka ligi taliyaha wuxuu sameeyay warbixin buu bixiyay waxa la weydiiyay ma aaminsantahay macnaha fikir ahaan iska daa macnaha dhaqan ahaan iyo maamul ahaan iska daa waxa lagu yiri maadaama aad macnaha waa 1998 weeyaan waa marka adeerkiis oo xilka u gogol xaaraya weeyaan guulada abdoon waa 1998 weeyaan TV Francis يا ورست فرانسيس كسر جميسنا يودك جيبوتي جميسنا وحلو يري إسماعيل ما دام ذلك أو إلنا سك وياه وحنوسين ياه وعاد معناها هذا أنك أذيرك ياه وجوجل حارة يجوشن يكرسي جوجل حارة يا تاي المدرب بيري زوجر تحالات أي زوجي تبي يسوي الوير ما من سنة هاي بالويري وحل يراد الصومالي وين ما آمن سنتهاي سؤال شو حوى ما آمن سنتهاي إلي جرتو صومالي وين وحوكو جواوي مدحوينها كلي تليها جيبوتي هستو إدتك عذابي إدتك حبسيدا كبوحيي إما قرر سايا أساقي يعرورتي سي ريركي سكلية نروش في عن كل نوليهين وحويري أنيقو ما آمن سني وحلي يرادو صومالي وين صوبتها wuu dhigdhigo wuxuu yiri calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh soo dhawaad si shir garay fadlan wuxuu yiri anigu Soomaali way wax la yiraahdo inay jirin baan ku cadeynaya wuu yiri sababtoo Soomaali way wax la dhaho ma jiraan wuxuu yiri Soomaali way wax la yiraahdo waxa sameeyay gumaystihiiba sameeyay kuleeyahay waa shakhsi Soomaali weeyaan ninka soo hadla waa nin Soomaali oo ciise oo magaraysa samawala samadool ma قبيل سوماليات اللي يقارو در كتر سويا وكله يهاي واحد سومالي اللي يراده هذا يراته سومالي وين اللي يراده مجرته صوبته تلياني يقومستي بس ما يجيبوا كله واحد سومالي اللي يراده السومالي اللي ده هذا قومسته سميه كله وفين بناي سومالي بناي مسلم بناي وسومالي بيك شيء ما مسكح ذا وررته حكوري ورنيو نكري لو قد وكواد لو صومالي قبيلك وكدش وادر قبيلك وكسي هذا وعيسى مقرسه جلبك وكي هذا وجلبك مقرسه والس ويتي وحارري نكري محاكو كل فكره صومالي مامولك وديفرنت ويا Somaliland ba aqoonsi qaadan karto maanta dawlad noqon karto oo annagu sii deyn karnaa war insaaqow iyo dhulbahantow iyo warsangaliyow iyo samaronow ordo dawlad noqdo oo calan qaata oo adduunka ha idin qabsado laakiin dadka xagga ku nool wadad Soomaaliya aniga la dhashay ehelkayga dawladdaas ana iskala passport laan bangari oo ka baa mushtar kara oo suurowda laakiin haday dhahaan wax Soomaali la yiraahdo ma jira haday dhahaan وانا سكوري ماننا اوكي اسماعيل عمر قيل له وحير تاريخ دي سيدن بريا صفعي دغيس اسماعيل عمر قيل له وحو دشه 900 وحو دفير حفيسك وحو قاطي 900 99 تاريخ 8 مي يو اديركيس كلا غريق الله يرحمه ولد ابطن markuu dhintay magaraysa asagu dhalash ahaan wuxuu dhashay 27 November 1946 dii buu dhashay magaraysa November 27 1946 da'diisu waa 70 jir weeyaan waa 70 jir magaraysa ma sha Allah fiiriya wuxuu dhalay caruurta uu dhalay bay idin sheegaya maanta arrin ma soo qoray caruur wuxuu dhalay ma sha Allah afar caruur ay buu dhalay madaxweynaha kaligii taliyaha ee Djibouti haysto wuxuu dhalay laba gabdhood iyo laba wiil buu dhalay magaraysa laba gabdhood iyo laba wiil buu dhalay labada gabdhood mid waxa la dhahaa Habiido Ismaaciil Cumar Geel midna Faadumo oo guuleed baa la dhahaa magarad liibaan Ismaaciil Cumar Geel iyo Anija
مقرنسا ولا شيء سي قبليسا لوانا مقعيه الصومالي دو الشيء لوانا مقعيه الصومالي هم بوسي مقرنسا النيجا اسمع النيجا وويل ويان وانك هذا حلك اللور هذه حلك الربو إن كوريجي ويان ما شاء الله وانك الربو حلك أقول حاريو فرنسيسكي وحبرشة كدكتانا وين مدوكم مغناين لما قرين مدحنا عننا إن حكومة الصومالية ده مقرشة معناها أهل كودي عرورتودي مقرشة وحا أي سمياني وحي نقدم عسين أنت بدن تذكر ربعين إنه بمشتان منق عنا موت كنت سقال بقول مي سديد دي أيو حلك اللي وريقو إسماعيل عمر قال كنت سقال بقول سقاشك إيه سقالكي وبشي شنات تاريخ سديد كنت سقال بقول سقاشن إيه سقالكي واللوري وحود دلي أفر عرورة بودلي أفر سفعي دقيس أفر عرور بودلي ما شاء الله إله وحفظه لما قبضوت إيه اللي بويل بودلي مقرسها لما قب ويل يقبر لو مقع صوماليات ومو سبحين ويل يقبرنا مقعين صوماليات بوسي فاضمو يليبان بوكل بحين ليبان إسماعيل عمر قيل يفاضمو إسماعيل عمر قيل بوكل بحين مقرسها لما كمدنا وقبل دي سي ويلكي سنة مقع صومالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي قلت بيها سي شركرين مقع صوماليات ما أوسسين أوكي اسكو صدو ودن كجبوتي وودن صوماليات ويان ودل صوماليات ويان صوماليات حقا تكتب محا فيريا سؤال بان دي ويديني هاي محا إنو أوضي هتان صومالي نهاي حرادا أغوين refugee camp in the world يرادا كينيا كتالا NFD قبل كا NF لقديرا دقمدا district of the Dabe كتالا دول صوماليات وما شاء الله لكن ودن كاسي ودن كينيا لدو واي كينيانكا iyo magaranaysaa iyo Etoobiyaanka waddamadooda maxay Soomaalidu investment ugu sameeyaan ma isweydiiseen Soomaalida nagu taajirsaneed dhaqaalaha haysatay lacagta haysatay Ilaahay lacagta uu siiyay waxa ku kalifay inay islii meeshii macnaha islii waa dhul dhoobay oo magaranaysaa Nairobi da kaleeto dhan dhinaca kale degtay Nairobi da kaleeto dhan way ka gurtay dhul beeralay oo roobka oo dhoobo baawurta gali jiray weeyaan magaranaysaa waxa Soomaali haddaanahay inagu kalifay ragganagi dhaqaalaha haystay ee madaxda ahaa ee Ilaahay dhaqaalaha u dhiibay inay magaranaysaa islii daara ka dhisaan maxaa kalifay ma isweydiiseen maxay Soomaali ragga ugu lacagta badan u tagi waayeen ilan Djibouti waa caasimad Soomaaliyeed weeyaane maxay intay Djibouti u tagaan hantidaas Djibouti intii la geliyo maxaa guryaha iyo daaraha ugu dhaadheer looga dhisi waay Soomaali maxaa ad ku kuuyo iyo jalwa dhul oo isku haystaan maxaa ku kalifay inay magaraysaa dhaqaalahooda geliyaan ana idin sheegay maanta qofka Soomaaliga ee aan garanayn ana taariikhda idin sheegay dhageysta guuleed Allah ya raxma Ismaaciil Umar Geela adeerkiis ninka xilka uu kala wareegay nin Soomaali jecel oo Soomaaliya dhinaceeda aan laga marin buu ahaa magaraysaa nin Soomaalida ogsoon abaalka u gashay iyo madaxweynayaasha Soomaaliyeed macnaha kaalinta uga soo baxeen nin dareensan oo aqoonsan buu ahaa Ismaaciil Umar Geela asoo dhalinyar oo magaraysaa da'da magaraysaa talada lagu raadiyo da'deedu ku jiro ayuu Soomaali naceeb ku kaambiin green jire magaraysaa Soomaali inuu naceeb macnaha nin Soomaali weeyaan معناها إنه معناها شخصية ديسة أساقو قفهان صومالي كسو هرجيدة معها لكن كرسيغا وكفر ليو كرسيغا أساقا وكفر ليو ومعناها حلكا كوهايو كرسيغا قلبا فيري سارق سديد مي 1999 أيو حلكا اللوريغا 2000 أناقو واتو عرطا اسكو كان يري مقرسا واتو صومالي اسكو دريه وسميه ويري كالايا داروضا وكالي هوية وكالي إساقو كالي دقلي مريفلو كاليا سواء كالنا كاليا إتو بوغي النخشد نوقوري وقرشكي ميزانية الدولة دي سلوغو طلقري وإنو دياريو رق خبرو ودي والعاق ويري سوقورا واحد صومالي اسكو قدري لهذاك وانك نقالة كبحية ويان وانك قرشكي ميزانية الدولة دي سو كبحية ورق وهاير قريست عالم كان ليقالة ومقالة قوري ومانتا ويك ليكي سداق قشد آد أخرسان كرتو اللغة الإنجليز كآد تقاني
intuu dhaqaalaha dawladdiisa iyo dhulalkii militarigu ka gata dhaqaalihii ka soo galay meeshii la rabay dadka jabuutiyaanka ee gaajaysan ee ma garanaysaa ee lacagta aanay haysan oo kii aqli laba xabsiga uu gelinayo xurayo wax ugu qaban lahaayo laamiye ugu dhisi lahaayo magaalada jabuuti haafna biyaha cabta haafna biyo ma cabto uu biyaha magaalada wada gelin lahaa iyo dhaqaale wuxuu ku bixiyay sidii Soomaali iskugu diri lahaa sidii Soomaali iskugu diri lahaa oo qori iskugu dhiibi lahaa oo waligeed iskugu soo dhawaan lahayn Soomaali waa dad aqli badan weeyaan waa dad ma garanaysaa challenge wax la yiraahdo inay challenge gareeyaan oo caalamka la challenge gareeyaan oo ay dagaalamaan waa dad macnaha aad u jecel weeyaan waa dad aad u jecel weeyaan fiiri maanta Kenya tareen bay samaysatay annagu 1970gii 1970 diyaaradaha caalamkan ugu qaalisan baan wadanay Soomaaliyeedna waxaynu wadanay hubka caalamkan ugu qaalisan warshadaha caalamkan soo saar kale shaqaalaha ka shaqeeyaan inta soo kun qof laga shaqaaleysiyo iyo dhulkanaga saa macnaa investment ugu socotay maxaa ina yeelay oo markii taa laga soo gudbay dagaalka sokeey waxa laga soo gudbay meeshii aan dhaqaaq lahayn Ismaaciil Cumar Geelle dhaqaalihii shacabkiisa loogu talagalay inuu wax ugu qabto korontada ugu guliyo biyaha ugu guliyo horumarka gaarsiyo dimuqraadiyadda ka dhalata wadanka Djibouti iyo wuxuu ku bixiyay Soomaalida duqbilow iyo kale iyo Soomaali kale yeysan kugu soo kicino ayaga isku mashquuli oo Djiboutiyaanka dadka Djiboutiyaanka Djibouti degan yeysan waligoodba wax fahmin waligoodba noloshoodu yeysan wax fahmino aqliga macnaha shaqeeyo ee dimuqraadiyadda ee ma garanaysaa wiilka macnaha wax bartay oo xil ku raadsado aqoonta leh ma garanaysaa inuu caalamka la challenge garay inuu dadka ka dilo wuxuu ku bixiyay dhaqaalo in Soomaali uu isku diro si uu kursigiisa u haysto asaga si uu kursigiisa u haysto oo macnaha isku ilaaliyo wuxuu ku bixiyay dhaqaalo ma garanaysaa wuxuu inoo soo qoray 4.5 wax la yiraahdo noo soo qoray 4.5 si fiican i dhageysta 4.5 maxaa tahay 4.5 wuxuu yiri dir 61 ha qaadato hawiye 61 ha qaato daarood 61 ha qaato ma garanaysaa digil iyo barifle 61 ha qaato ma garanaysaa 0.5 qoluu u bixiyana 61 ha qaato yiri waa isku dir caadi oo annagu inaana waligeen bakicin oo aanan aqliga naga shaqeyn laakiin maanta wiilashii waxbay barteen Ismaaciil Cumar Geelow wiilashii waxbay barteen maanta waxa weeyaan meeshan waad ku dahday intaad joogto 1999 May 8 baad kursigan qabsatay maantana waxaa rabtaa wiil oo adiga aad dhashay oo Faransiiska aad wax ku soo bartay oo Soomaalida kala dhan ka qarsatay yaad maanta rabtaa ma garanaysaa inaad xilka ku wareejiso adiga adeerkaaba kugu wareejiyay wadanku wuu cusbaa wuu yaraa ma garanaysaa dib lama rabin qalalaasana lama rabin ma garanaysaa buuq lama rabin xumaan lama rabin ma garanaysaa ma sha Allah inta soo qabato waa soo qabatay waa soo hagaajisay inta dad soo dili karto soo war Djibouti qofka la qabto wallahi billahi tallah waay Soomaalida u tagi laadahay hanti u gashan laadahay waay Soomaalida qurbaha joogto carruurtooda u geysan laayihiin magaalada Djibouti ee dalka Djibouti war dictator baa wadanka haysto Djibouti hadaa tagtid wariyaha warninka waxay ku jirtaa State Department-ga Mareykanka ku jirtaa State Department-ga Mareykanka marka baasaboorkaaga safraysid ya calaamadaysan Djibouti ma garanaysaa saldhiga ugu weyn Mareykanka uu ku yaalaa ma garanaysaa at the same time there is a warning going on over there warning kaasi waxa weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle everybody kama qarsoono waxa weeyaan waa dictator dadka cadaabo sababta Soomaali u tag weysana barta waxa weeyaan naceeb waa soo ku abuuray weeyaan waraanoo Soomaali oo duqbulow maanta magaalada Djibouti hadaan tago oo damco maanta anoo wiil Soomaali magaalo Soomaaliyeed ma airportka marka ka soo dago waa isla markiiba lagu dhaadhicinayaa isla markiiba waa lagu dhaadhicinayaa kuma xishmeynayaan sharci aweed Soomaalinimo lagu ma xishmeenayo ma garanaysaa waxaaba ka dhaadhacsan qofkii dibadda ka yimaade wadanka soo galo ee Djibouti yimaado inuu ma garanaysaa xilka kala wareegi rabo xilka in Ismaaciil Cumar Geelle xilka laga qaadan rabo ma garanaysaa kursiga laga tuur rabo revolution lagu ka dhaadhacsan shacabkii caadiga ahaa ee magaalada Djibouti deganaa nin aan asaga u haysin cunto ma cuno
والله وبالله بين ما نينا مدحويناس كلي تليها هي جيبوتي هستو أنا أهسن وأنا أهسن وأنا دين إسماعيل عمر قالوا وأنا إلى لاسن أنتم معنا ولا مقرسة أنا دقبلو كوهس ماي يروح كنت أنا لكن الشعب كابرتها كنوا ولا عليه الصومال لماذا كوينت هاي مقرسة أن إسأسنو مقرسة قاران كيسلب حسنو ولا لها النهاي إنسو قبيل كنهاي إنهل كنهاي عبرسن مقرسة دباتادو كرسة وريا ويلك عسكري قبطان مقالة جيبوتي سوف عيد قيس مقالة جيبوتي ويلك عسكري قبطان everybody مقالة جيبوتي جوجو أكسونيا وعنق نكان ميت كيس اللبن مالن كدب وحلقيه ليا ودada qarkeeda meel cidle ya qofka meedkiisa laga soo qaadiya war meesha halaag ba ka jiro Soomaaliya ay runtu soo sheegdo war dadkani dadna la dhashay weeyaan wallahi wa billaah dadka ciisaha ay canfartu waa dad Soomaali oo islaame oo nolol dhashay weeyaan in badan fiiri ninkan inuu waxa la yiri af wax cun xishoobay Soomaali tare af wax cun xishoobay la yiri ma garaysaa siyaasiyiintanada waxbay cuneen ninkani macnaha kama hadli karaan annagii wuu suuqeen mashquuliyay annagii wuu naga dhaadhiciyay 4.5 wax la yiraahdo annagii wuu naga dhaadhiciyay ma garaysaa inaan isdagaalno annagii wuu naga dhaadhiciyay inaan wali burbursannahay dadka marka waxa loo baahay maanta maadaama annagu aan dawlad helnay oo maanta annaga dimuqraadi 8 madaxweyne oo ina soo maray oo dimuqraadiyada la qabsanay oo AK47 iska dhignay oo ma garaysaa dagaalkii aan joojinay oo qabyaalad yar inagu soo hartay kaliye waxa loo baahayaa shacabka walaalaha annaga gumaysi bay ku jiraan maanta inaan xoreyno u baahayn dadka ciisaha ee canfarta la yiraahdo maanta gumaysi bay ku jiraan waa la gumaysanaya maanta way cabursan yihiin waa dad ina la dhashay weeyaan والله دتك باهرها مقرنسا سoo qaxay muqdisho korkeeda degan مقرنسا UNT caawinayaan iyo Soomaalidan mutadawacnimiinta caawinayaan abaar baa ka dhacday Djibouti abaar xun baa ka dhacday magaaladu laba qaybood weeyaan qaybta macnaha ay Mareykanka gateen iyo dawladdu ay degan tahay wasiiradu degan yihiin waa laga nool yahay biyaha waa caadi cuntadu waa caadi lightkuna way leedahay magaalada qaybteeda kale tara walaal dadku way dhimanayaan wallahi been ma waxaan u baahannahay wiil Soomaaliyeed oo ma garanaysa caawiya loo baahay anigu duqbulow Djibouti aniga ma degan maxay iga hadashiinay wiil Soomaali baan ahay markaan arko qof Soomaali oo dhiban oo rafaadsan oo ma garanaysa ii baahan inaan u hadlo codkiisa u noqon kara videogan 20 kun qof badaawanayso insha Allah next 5-7 days 20 kun qof badaawanayso 20 kun qof macnaha 10 kun qof يا درين Soomaali nima ku jiro oo u kici karo beenna ma waxa loo baahanyahay shacabka naga Djiboutiyaanka ee ciisaha iyo canfarta halka degan ee dhibaataysa abaarti maalin dhaweeyta Soomaaliya geeska Afrika ku dhacday Djibouti iyo macnaha lagama hadlin miis weydiiseen Ethiopia waa laga qeyliyay Kenya waa laga qeyliyay Soomaaliya waa laga qeyliyay waa la kacay lacag baa la diray qaaraan baa la aruuray baawurta waxa la sameeyay lacag baa war magaalada wadanka Djibouti miyaa is weydiiseen dad Soomaali baa ku nool cid is weydiisay mis hadal ma maqasheen idaacad kama shaqeyso ma arki karno ma garaysaa TV RTD la dhaho oo Djibouti kantaroosha meesha ka jiro wuxuu yiraahdaa barta guriga quruxda badan ku qabta askari bad waa North Korea oo kale tawiyaan sida North Korea uu dadka u ilaaliyo oo ma garanaysa askarta sirdoonka dharka cadka qofka soo galo loo yiraahdo guriga bas arki kartaa rejiimka loo ilaaliyo kala Djibouti la soo ilaaliyo hal TV RTD la dhaw kaliya ka shaqeeyo askari baa iyo askar wariyaashu waa ciidan weeyaan ma garanaysa askartu waa ciidan wariyaashu waa askar weeyaan qoryo wataan booliis weeyaan baaj bay wataan macnaha guriga quruxda badan kaliya soo saro war dadka xagga inaga deganay Soomaaliyeed ee ciisaha iyo canfarta ma ogsoontiin inta qof abaar u dhimatay ma la socotaan maalin dhaweeyta abaartii ka dhacday geeska Afrika miyaad maqashay qof Soomaali oo ma garanaysa hadaad qabiil iyo wax kale ku adaan ku wadin miyaad is weydiisay maxaan Djibouti ilaa Kenya oo awood leh oo power leh oo maanta tareena furanayso way qeylisay waatay qeylisay tiri abaar baa dhacday caalamka noo soo gurmaday waatiis xagga dadka degan oo dhan laga wada qeylay Ethiopia oo ma garanaysa power geeska Afrika sheegato libaax Afrika sheegato yaa waxay u qeylisay in macnaha abaar ay ka jirtay
waxay u qaylisay oo caalamka u qaylisatay oo markhaati ka nahay inay qeyliyeen oo dhaheen abaar baa ka dhacday Itoobiya soo gaaray war mucaawino noo keenay waa tii Mareykan iyo caalamka gurbay war waddankanaga Djibouti la oran jiray miyaad maqasheen idinkaan idin weydiin ilaa Afrika geeska Afrika meesha ugu kulul buu ku yaalay miyaad is weydiiseen oo tiraahdeen war waddankanaga Djibouti la oran jiray ee Soomaalida deganeed war dadka xagga ku deganaa maxay ku sugeen carwakaasi qof Soomaali arinta is weydiiyay ma jiraan Ismaaciil Cumar Geele waqtigaaga walaal wuu dhamaaday 1999 May 8 baad xilka qaato dagaalka ka dhaxashay maantana wiil adiga dhasho magac Soomaaliyeed liibaan Ismaaciil Cumar Geele hadaad maanta u dhiibileed ama Faadimo Ismaaciil Cumar Geele maanta xilkan aad siin lahayd magac Soomaaliyeed oo ugu soo aadnay lahayn laakiin wiil magac Faransiis aad u bixisay oo ma garanaysaa naceebka adiga aad kariyad gareysay aad ku abaabishood ugu tala gashay maanta inuu macnaha Djibouti aad ku wareejisid war meeshu boqortooyo ma aha walaal war meeshu boqortooyo ma aha meeshu waxa weeyaan waa geeska Afrika ku taala Soomaaliya iskale waa dad Soomaaliyeed weeyaan ummad Soomaaliyeed weeyaan almost 6,000 oo qof baa waxay u dhimatay abaar u dhimatay gaajo u dhimatay magaalada waddanka Djibouti war miyaad isu weydiiseen oo tiraahdeen Soomaalidu ilaa inta ma waa shan Soomaaliyeed aaway Soomaalida nadi kaleeto ee deganay Djibouti miyaad isu weydiiseen maya cid isu weydiisay ma laha waxay raalno miyaad isu weydiiseen war abaarti ka dhacday geeska Afrika yaa abaarti geeska Afrika ka dhacday ee ma garanaysaa dadka badan iyo xoolaha badan lagu laayay war wadda dadka naga Soomaaliyeed deganaa muxuu ahaa Djibouti deganaa xagee ku sugnaan isweydiisay mala cidha isweydiisay mala ma garanaysaa laakiin waxaynu naqaanaa kaliya ma garanaysaa Ismaaciil Cumar Geele nacaawiyay Ismaaciil Cumar Geele kan noo sameeyay hal maalin ma garanaysaa hal maalin uu nacaawiyo male lacag iyo qarash iyo ma garanaysaa hantidii waddanka Djibouti ayuu wuxuu ku bixiyay ina annagu aan waligeyn degan annagu wuxuu ku bixiyay inuu 4.5 noqon annagu wuxuu noo sameeyay wax la yiraahdo 61 hawiye iyo daaroodow hawiye daarood 61 dirow 61 iyo raxwe 61 dad Soomaaliyeed oo annaga nagu dhaxnool oo waligeyn takoorin iyo yiri 0.5 baa la yiraahdayo 61 wayagana sii diriya hawiyo isku mid noqdo 120 isku darsado la dagaalama daarood la dagaalama inaan waligeyn annaga isdagaalno waan heshiinay maanta Soomaali way heshiisay daarood baa madaxweyne noqonay hawiya madaxweyne noqonay digili mirifla madaxweyne noqonay shacabka Djibouti naga maqaneed adigu fikirkaliyaaba aaminsan ee ka dhaadhicisay macnaha inaan wax Soomaali weyn la yiraahdo ee jir Djibouti waa Soomaali annagana u dagaalamayno annagana ka dulqaadayno xilkaagina wuu dhamaaday waqtigaagina wuu dhamaaday 1999 waxa ka soo wareegatay almost 20 years ba ka soo wareegatay walaal maanta inaad macnaha u dhiibtid oo tiraahdo wiilkayga aniga aan dhalay yaan ku wareejinaya fiiriya ilaahay ku dharshay 4 carruur buu dhalay Ismaaciil Cumar Geele waxa weeyaan Habiida Ismaaciil Cumar Geele Faadimo Ismaaciil Cumar Geele liibaan Ismaaciil Cumar Geele Anija fiiri waa wiil weeyaan liibaan iyo Anija labada wiil buu dhalay Anija Ismaaciil Cumar Geele waligiin ma maqasheen magac Soomaaliyeed Anija la dhaw Anija idinka ay weydiinaya wallahi inaan waligii maqal aniga isku mid baana wiilal Soomaaliyeed gabdho Soomaaliyeed baana Anija magac la dhaho oo wiil loo bixiyo anigu ma maqal Anija Ismaaciil Cumar Geele yaa loo gogol xaaraya oo loo diyaarinayaa in madaxweyne looga dhigo Djibouti war meesha ma boqortooya waa maya ciisu waa inta soo jilib weeyaan waa dad macnaha Soomaalinimada ku inta wallahi billahi tallahi laga yaqaano meesha ay joogaan Soomaalinimadooda ee muuqanayso oo ma garanaysaa la dareemayo weeyaan oo ma garanaysaa wiilka Ciisaha gabadha Ciisaha indhaha bab markaa ku siisid ayay ku sheegay huuna walaal dadka laga keenay weeyaan ma garanaysaa walaal waa magaca qofka kugu yiraahdo naxariisa dareemayso weeyaan ma beento huuno walaal qofka kugu yiraahdo waad oga dabacsananaysaa qofku yiraahdo waryaa annagu Soomaalida koonfurka waryaa baa isugu yeernaa
وريا قف كده يقف كده هون ولا كيبات قدام سنانة ساير سن حريص الأوفير نسا ككوير هذا هون ولا يتفع على أوفير نسا ودتك لو قدها سكلويان ودتك سومال لماذا نوع وين تويان إسماعيل عمر قالوا إلى عبور الشد وما قريش أنيجا إسماعيل عمر قال أنيجا ولا قال ما قلباني لا شيء ما قال أنيجا إسماعيل عمر قال لي أدمان أنت فرنسيسكا مدودر تودتك كقريسة عيالك جبوتيان كعيسى هاي عفرت هانا إيجاجيسين وما قريش مقالة قيمنا بيئة سنة سنينه بيئة وحبها اللي قاعد بينه خلال كاي لقى حارقني إدتك كلك بيرك كوهيان هذيك يدنا على كودون تاعنا فنانين تأيه هسه تنادينا أد معناها قريه وقريشة وهو عم بارين يبدل رمضان بالوجرة كوكو فوقان مايو لكن أكسروا ريفولوشن بقوقع ريفولوشن سومالي وين أدي الدرين وتكسر جدا يا كوكو كعيو والله حرينا يا دولكن والله حرينا يا مردونا إن شاء الله وتكتك دون تاميشن تضبط تنجر باتاي وحاد دلت أفرتني اللحدي بدلت مقرنسا نوفمبر أفرتني اللحدي دتك عجوا مساجدة كجران وعمر سنيان ويتكريان ويسوميان ويصلاديان حاجة سكجوجان ما شاء الله ماشوا هيسكون الجنين هذا كور بيسومالي أرنتها إيدي هذا كور بيسومالي إيديو دبعتي كقاتي أنتوا أنا ودن كاجر دبعتها ما سومالي دبعتها ويرشدين بهاشو فصح وسيكو بالله بتولى بهاشو فصح أو ديمقراطي كدك وولاش جبوتيان كي وحبرتي عيسى عفرتها وحبرتي وقالوا إلى دونك اللجان قادان 7 years old اللي بتولى وتضوات تنجر بتاعي أوه توادفت ويل كيجي أنيجا إسماعيل عمر قال أسحل الليبان ما ترى ليبان كان سابع سؤال مقع صوماليات وياه والليبان إسماعيل عمر قال هذا دليل ما أنت هلا سي باشوان أسان أوديارنا يا أوتو بريا ورماش النورث كوريا معها ولا ماشي النورث كوريا أو ويل كيس كده حليانه تعال اللي تاجي معه جيس كأفريقيا كنت هلا إيست أفريقيا بيبل بلنا دكاس سومالي باللي هذا قبيل بيأكل بحذا عيسى الدجن عنفر بالدجن قلبهانته الدجن مقرنسا إسحاق بالدجن سوالي ودم بمشي كويدن أنا ترى هذا سومالي وين طلياني بسنين مجر تدين فيديو شير هلا ده هلا جارسي إسماعيل عمر قال لي أكسون هذا النك سكان دري سومالي ميان والبقى جوجنو قبيل 4.5 واحد اللي يجي هذا نقاله كبحي الربع هوية دارودية ساقية دري وحبينا يسوي ولا يشيل السقويان هل سنة مركو حفيز كفدي وين ير هنو الصومالي مركز إلى تريد كنت هاي بدرسنا وين ير مركو حفيز كجبوتي فدي ينقالي ميزانية دي وطن كأنه كبحي سيدي معناها الصومالي وين تنكلته وسكوكو بعين لها سيدو سؤال معناها دولك أقول لها ميزانية قرش نقاله وكبحي جهد 5 years كأوهر وحفيز كجوجة ودن كيسة وحبا كموسى قبل وح سميه منا أنجو قرش إنه جب حين يسان سكود الله أنجو حنجو سميه وحنا سميه فيريه وحير بني دقيسينا أنت وحما قرأت هذا وحفهمين وحباني ذي فهسين ياي سوفي عنو دقيست لكن هو الضقبله قبل فار سير شير قريه فضل شير ده ور 4.5 ماشو كيمة 100 سويديسين ومايا المسا ماله واحد معناه المسا ماله قبيل ويان معناها لا وين كركر لكن واحد معناه سؤال استعمال شمال وويل كيري لحدن يكو دارود قادو لحدن يكو هوية وقادو لحدن يكو در قادو لحدن يكو دقلي مريفل قادو لحدن يكو 4.5 قادو المسا مالو در هوية المسا مالان إلى دهاية بقول يلا بعتن كينا نقاطة وما قرن سر حوينا الله يسلم نقطة أو دارود كي 0.5 كنا بحبيئة أو نلك الجلية وننك إيراك هنا ويا لا ما يكون هالشيء فيه ونما يوايد السلام يا فيديو قصير شير قليا إسماعيل عمر قالوا أني جو إسماعيل عمر قال من عليه كنا قن مش جبوتي أنا كوشة أنا الضقبلو ويل الصومالي وحاول الرفلوش كسوق كعدون كان كوك عويان مقرنسه شعب كان حر بين نقدوران حر انتين نقدان ومقرنسه وكلا كعدو وجبوتي وليبا مال waxay ku taala istiraatiijig oo maqarnaysa xeebta reer Siiga ku taala caalamka dhan uu jecel yahay waxay noqon doontaa meel macnaha Soomaali ay ku soo hirata caas magaalo madaxda macnaha the business center of Somalia noqon doontaa ku sheegata ayada
ayadoo waddanka Djibouti oo calankeeda haysato oo u dabaaldegayno oo calankeeda annagoo Soomaaliya u soo dhimanay oo qarash u bixinay oo adeeradan u soo dhinteen oo walaalayaashan u soo dhinteen oo Soomaaliya dhan ay naf u soo weysay inaad maanta adiga oo ma garanaysaa kursigan yarka iska raba inaad iska dul fadhidid oo wiilashaada rabtina meesha boqortooyo maaha walaal waana laga kaxeynaya mar dhow wallahi wabillahi tallah isku dirta ku baratay Soomaalida isku dirtay ku baratay warwaayada salaam ya fiidiyoga sii share gareeya meel walba joogtiin wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Ismaaciil Umar Geero calanka